ragga u shaqaalaha u ah madaxweynaha 3 casho u sii hadhay xalay 4 bay ahaayeen markay shirka naga xidheeyeen ragga shaqaalaha waxay deegaanadan u dhashay ee annaguna aan deegaan ka soo wada jeedno waxaanu leenahay waxa aad gasheen qofku markuu jinaabo galo jeedal iyo rajmi waa ku waajibay laakiin insha Allah doorashada ka bacdi waa jeedalkiina iyo rajmigiina waa u dhici doonaa adeer laba iska kaaxiga la islama xanto dhalashiya xigtaba waa ninka dhinaca kaya abaal buura abaal bara abaal bun iyo dheeraad ninba kiisa kaan ugu gudi beerka ka ogsooni waxa weeye waqti yar waa la kala bixi hadii aanu tolkayo nabad u doonaynay dhulbaantana aanu nolol u doonaynay dhulbaanta hadii diiday nabadii dan waxaan umaleeystaa inuu nolosha iska nahay wafdi uu hogaaminayo siyaasi Muniir Axmed Cigaal iyo xoghayaha warfaafinta ururka ka Guuleed Maxamed Ismaaciil oo ka socday isbedel doonka ayaa booqasho ku tagay deegaanka Qorlugud ee furunta hore ay ku sugan yihiin ciidamada beesha Garxijis ee ku sugan furunta Qorlugud booqashadan ay ku tageen siyaasiyiinta xorooyinka ciidamada Garxijis iyo SBB iyagoo ku wareejiyay alaabo kala duwan ugu horreyn baa halkaasi ka hadlay siyaasi Muniir Axmed Cigaal iyo Guuleed Maxamed Ismaaciil iyagoo dardaarno kala duwan siiyay ciidamada beesha Garxijis ee ay halkaasi ku booqdeen waxaana kamid ah hadalladoodii sida tan ragga u shaqaalaha u ah madaxweynaha 3 casho u sii hadhay xalay 4 bay ahaayeen markay shirka naga xidheeyeen ragga shaqaalaha waxay deegaanadan u dhashay ee annaguna aan deegaan ka soo wada jeedno waxaanu leenahay waxa aad gasheen qofku markuu jinaabo galo jeedal iyo rajmi waa ku waajibay laakiin insha Allah doorashada ka bacdi waa jeedalkiina iyo rajmigiina waa u dhici doonaa adeer laba iska kaaxiga la islama xanto dhalashiya xigtaba waa ninka dhinaca kaya abaal buura abaal bara abaal bun iyo dheeraad ninba kiisa kaan ugu gudi beerka ka ogsooni waxa weeye waqti yar waa la kala bixi hadii aanu tolkayo nabad u doonaynay dhulbaantana aanu nolol u doonaynay dhulbaanta hadii diiday nabadii dan waxaan umaleeystaa inuu nolosha iska nahay aniga waa Muniir Axmed Cigaal iyo waftigii aan hogaaminayay waxaanu nimi magaalada Qorlugud waxaanu ciidanka soo gaarsiinay wixii aanu wadnay ee aanu sidnay ciidamada kala duwan halkan aan ku sugannahay waxa weeyaan taliskii ciidanka teleesma jire aanu jiitirtiis ma yiraahdo abtiyaashay baa yiraahdaa aniga Muniir Axmed Cigaal baa la yiraahdaa laba qof ma ka koobanahay qof waanahay SSB sida loo yaqaano laakiin waxa ka sii weynahay qofka kale ee ah inaan ahay abtiyaashay hadda Garxijis bay noqdeen aanu dibri hore habri isbaan oran jiray laakiin jiitirtiis eesh qiyaas raacayna shahayga nin weyn oo raacayna shaabara waxaan aad ugu faraxsanahay runtii farxad gaar ah ay tahay in abtiyaashay halkan naftoodii iyo maalkoodiiba ay ku yimaadeen iyagoo hiila waa dareen gaar ah waa dareen aad ka dhadhaysanaysid dhuux hoose maaha markii koowaad ay hiil u yimaadaan colaaduhu way iska bilaabmaan Afrika muddooyin dheer baa la soo dilayay muddooyin dheer baa dadku ay magaranaysaa xoolo dhaqato ama ha ahaadaan ama dawladii kala dambeeyay ha ahaadaan ilaa qarniyo hiilka ugu horeeya ee yimaada cid firaysaana ma jirto ama marka la yiraahdo isaaq yaa ugu soo horeeya hiilka abtiyaashay buu ahaan jiray 9 way sii qoyin tahay 5 sano ka hor bahayd sideedaad ilka casaa halkan taliye ka ah abtigay uu ku jiray markaa sanamta hiilkii ugu weynaa bay halkan ku yimaadeen doolaaliya ka dagaalamayay cilmi faqashi ilaahay u naxariiste maantana way yimaadeen waxa halka ku soo afkay dad badan oo wax badan oran jiray hadii siyaasaduhu murugaan hadii hogaamiyuhu dadka kala qaybiyo taa macnaheedu maaha in dhuuxa dadku isbedelo dhuuxa dadku waa kii kaabtiyaashay waa kii waxaan maanta ku faraxsanahay xeradan ugu soo booqanay in iyagoo saanadoodii ciidan iyo hubkoodii wata ay halka joogaan waxaan jecelahay inaan kelmad uga faa'iideysto halkan ragga u shaqaalaha u ah madaxweynaha 3 casho u sii hadhay xalay 4 bay ahaayeen markay shirka naga xidheeyeen ragga shaqaalaha waxay deegaanadan u dhashay ee annaguna aan deegaan ka soo wada jeedno waxaanu leenahay waxa aad gasheen qofku markuu jinaabo galo jeedal iyo rajmi waa ku waajibay laakiin insha Allah doorashada ka bacdi waa jeedalkiina iyo rajmigiina waa u dhici doonaa oo ay noqon doontaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ku hadlaaya afka deegaankan oo dhan anoo ku hadlaa abtiyaal aan leeyahay wad mahadsantihiin insha Allah taala dalkeena wanaagsan
dawlad wanaagsan oo timaada cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo dalka yimaada oo ummadda mideeya oo ciidankan qaranka iyo ciidamada nolol sameeya ayaynu sugaynaa muddo dheerna maaha alaysa bisubxu qariib 3 casho kaliya inaga hadhay waa idin jecel lahay we love you dhammaantayo waxaanu leenahay heesta maxayd ragga dawga u jeexay way ducaysay ya salaam ya salaam ya salaam ما شاء الله تبارك الله aniga oo kamid ah waftigan aniga iyo Muniir iyo Jeeye iyo rag badan Maxamed Wadan iyo halkan soo booqanay magaalada Qorulugud sidoo Muniir sheegay wixii aanu awoodeynay ciidamada ay la garab istaageynay haddii yihiin SSB iyo haddii yihiin G36 iyo haddii yihiin ciidamada qarankaba waan soo gaarsiinay si gaar ah waxaanu ragayaga abtiyaasha loo iyo Muniir iyo aniga iyo Jeeye iyo aanu go'aan ku gaarnay inaan xerada abtiyaasha aanu tagno sababtoo ah abtiyaasha waxaan leeyahay horta ku bishaaraysataan horta waxaad ku bishaaraysataan kaftankii habar jecel dhexdeeda waa noo wanaajiseen sideen noogu wanaajiseen waxaad noogu wanaajiseen inaanu maanta nimanka habar jecel markaan la kaftamayna online war horta wixii la ma haysan oo yaa haysan G36 sankaan soo taagayna abtiyaalaad iyo aad mahadsantiin abaalkiina if iyo aakhiraba waa leedin waxaan leeyahay abaal buura abaal bada abaal buni iyo dheeraad ninba kiisa kaan ugu gudi beerka ka ogsooni waxaanu insha Allah bidmilaahi kariim aynu ka baxaynaa culaysyada dalka saaran 4 cisho kadib 4 maalmood kadib hadii Allah yiraahdo Cabdiraxmaan Cirro weynu dooranana waa madaxweyne dhaartii wax harsantay waxaynu rajaynaynaa in dalka iyo dadka weynoo midayo waananu ka filaynaa si gaarana beesha garxajis waa lagu yaqaanay Soomaaliland midaysay abtiyaal Soomaaliland midaaya Soomaaliland muuse u kala kaxeeyay ummadeeni Allahu akbar reesha saxaq buu qaybiyay Soomaaliland buu qaybiyay intaba waynu isu keenaynaa dalkeena qurux badan oo midaysan oo kii 2017 lagu wareejiyay ka qurux badan ayuu kala wareegaynaa idinkana waxaan rajaynayaa idinkii ciidamada qarankaba in Ilaahay idinkii wax fiican ay noo soo socdaan aad ugu faraxsanahay inaan xeriyooyinkii kale oo aan ka dooranay xerada garxajis runtii waa abtiyaashay anigu si gaara inkastoo Muniir iyo ninka kale gulad ay abtuu yihiin wallahi aad baan u faraxsanahay waxa muhiimadu tahay horena halkan waa u timaadeen waana iimaan doontaan insha Allah dhinaca kale waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha kala duwan ee ciidamada beesha garxajis iyagoo soo dhaweeyay siyaasiyiintani ugana mahadnaqay garab istaaga ay muujiyeen halkan uga mahadnaqayaa waftiga ballaadhan ee hogaaminayo Muniir Axmed Cigaal ee ka socda xisbiga wadani iyo kaax mar labaadna waxaan u mahad celinayaa deegaankan bulshada degan ee la yiraahdo habar jecel ama ciidamada SSB oo si aad iyo aad u qiimo badan oo u sharaf badan noogu soo dhaweeyay deegaankan annagoo ah uu deegaankan ka mid yahay deegaamadayada waxaan ka mid ahaa mujaahidiintii ururka SNM ee halkankii ka soo qayb galay imikana waxaan ka mid ahay saraakiil xigeenada goobta halkan fadhida waxay Soomaalidu tiraa laba bidabeerka iskoog annaga iyo deegaankan loo kala warrami maayo waxaanu ka soo bilaabay xabadda meesha laadaha iyo bari Qorulugud baan ku soo galiyay laba habeen iyo 2 maalmood buu roobku dhakada naga hayay raggii maalinta ku dhaawacmay way joogaan way ka horeysay 13 inan oo habar yoorisa iyo adimadu ku go'een xaradii halkan Qorulugud waxaanu ka dagaal galay Buuhoodlayare Aynaba Wadaamago Kirid labada labi Gaatama Diinlayaal Gumburlibaax Baale Eeday Naqdamijo Gubad Xariir intaaba waxaanu isugu yeelinaynay walaalahayo inta anigu nimeeyo oo habar jecel turteeda saaray Ilaahay bay u tirsantay ama nool oo dhaawac hadda waxa goobta ku sugan mujaahidiintii halkan ka ugu hogaaminaysay oo kamid yahay Axmed Xasan Cabdiraxmaan oo taliyaashii hawlgelinta waxa goobta jooga kayseelka badan oo ahaa mujaahidka ugu qiimaha badan deegaankan la yiraahdo Qorulugud oo jaacdoolaala kii maalintii uu dhaawacmay madaxa kaga dhacday qaaday adeer laba iska kaaxiga la islama xanto dhalashiya xigtaba waa ninka dhinaca kaaya walaalayaal iyadoo isaaq mid quraba yahay habar jecel iyo garxajis waxa ka dhaxeeya dadka waxa ka dhaxeeya danta waxa ka dhaxeeya dalka halka waxa iga muuqdo mujaahidiinta halkan ugu soo barbaarisay mujaahid Cagaweyne Axmed Cagaweyne waragii tan ka dagaal galay ah halka waxa ka tagay saraakiil aad u fara badan Faysal Dheere Furcas Ali Badaregto dimiyaal tirin karaya Axmed Xasan Cabdiraxmaan geeljireelka badane Jaashow
xays 32 sarkaal oo saraakiishii halganka hogaamin jirtay ayaa goobtan ka tagay badna joogan kuwii kale ay keeni doonaan gaadiidkii tiknikada aan telegrafka waxa weeye waqti yar waa la kala bixi haddii aanu tolkayo nabad u doonaynay dhulbaantana aanu nolol u doonaynay dhulbaanta hadduu diiday nabadii dan waxaan umaleystaa inuu nolosha iska nahay waa ku mahadsantii walaal booqashadaana soo booqateen aanoo timaadeen aad baan idin soo dhaweynayaa intaa haddaan ka gudbo hadalda isagaa iska badan ee garxajis iyo habar jeclo cid isu dhaantaa ma jirto weligood bay isu hiilin jireen isagoo aan isaaqaba wax kala ahayn anigu ma kala qaadqaadiya isaaq laakiin labada ugu horreeya ee tartama ee isuna hiiliya waxna isdaraa waa iyaga wixii siyaasad iyo nin dan lihi uu yara meelaha yara camaalqoyad waxba dhegeysan mayno maada gabayga waataan ka tegey maridhigeedii ama macnaynin maasooyinkii muunada lahaa iyo marjaf waliba goortuu tirshay waan iska maanacaya mulkigeeda anigoo yar buu mawla ii furaye balaalmariya maanta oo kale madal ka sheegay meel ay tahayba Somaliland waa markaa quree marsadii burco iyo mureec miidhashi iyo daalo marsadii berbera iyo togdheer madasho ood weyne mugwajaale booramiya dila waa markaa quree insha Allah maalmaha ka hadhay waad mulkiyaysaa ee roomaanka geli ku sugo waad mulkiyaysaa mahad waxaan u qiray mawlaha rabbi oo kaanka maamula ee midna waxaan u qiray mudanaha xirsi la isma maanacay midna maxamed xashaan u diray magan ilaahay midna Muuse Habari degan shaashada u mari waabtiyaashay midna Muuse Habari degan ayaan shaashada u marinay muuniyo tolimo habar jeclaa lagu majiirtaa ee murtidana salaam ba ahaa mahad ilaahay in maroodi lagu maakumay maan maragu haystaa ee wad Maxamed iyo laba arbaha kuma masaaleele murjiskii badda lagu metelay milan ka horo waa markuu Israel Carabi lahaa halka hadaan yara dahabto uu gujiskii badda ku tilmaamay Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco